السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري وحا إذن كل وذاقي إن وزارة ورفافينتا حكومة الصومالية وكدح جرو مسوق كي وحوقنا وحا هاد إذن وذاقيا حليبانو كترسان باربانك الصومالية oo magacyadooda la dejiyay isla markaana gudaha wasaaradda laga mamnuucay in codkooda laga gudbiyo telefishinkana laga sii daayo wixii muuqaal ah. xildhibaanadan maxay yihiin yaa kamid ah waxaan idinku soo gudbin doonaa faahfaahinta ha yeeshee waxaan marka hore ka codsanayaa inaad sii gudbiso laygareyso shargareyso oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. wasaaradda waxaa wasiir ka ah Daawud Aways ha yeeshee inta ugu badan awoodii waxaa haysta ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf oo qaatay naaneysta Al-Cadaala kaas oo aad badigiin ka dhagsan tihiin xogtiisa in wasaaradda uu sax ku soo kordhin tayadeedii hoos u dhigay sidoo kalena caburin uu ku hayo saxaafadda madaxa bannaan iyo ragga saxafiyiinta ah ee da'da yar ee wasaaradda ka shaqeeya isla markaana uu ugu hanjabayo haddii ay sameeyaan tallaabo isaga oo raali ka ahayn shaqada banaanka uu kaga dhigayo ama uu kiiska uu doono ku soo oogayo. haddaba waxaan helnay xog ah in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu amar ku bixiyay Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf in aan la wareysan karin aragtidooda aan laga sii dayn karin telefishinka iyo raadiyaha ee lagu soo koobay qolo gaar ah oo Cabdiraxmaan ku wareegsan iyo in xildhibaanadaas ay yihiin kuwa mucaarad ah. xildhibaan Jilay ayaa kamid ah xildhibaanada ka soo jeeda Jubbaland ayaa kamid ah iyo xildhibaanada ugu badan kuwa koonfur galbeed ee Soomaaliya ee diidan nidaamka dalka iyo sida wax loo wado. waxaa marka hore idin maqashiinaya qayb kamid ah isla xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo qoys ka jooga sida wasaaradda ay u shaqeynayso wuxuu ku tilmaamayaa waliba in ay tahay X raadiyihii iyo telefishinkii dawladda balse hadda aysan ahayn raadiyo dawladeed iyo telefishin dawladeed ha yeeshee uu yahay mid qolo gaar ah ama jufo gaar ah iyo xubno gaar ah ay isku koobeen aragtidii ka soo horjeeday kuwa muxaafadka ah dadka qabana loo diiday liiskoodana la gudbiyay. wuxuuna intaa ku darayaa in ay jiraan cid walba oo ka hadasha arrimaha siyaasadda in tiimbaro waa taqaaniin tiimbaraha waaweynka lagu dhufanayo oo ah tiimbaradii Arsenal lagu dhufanayo. waxaan arintaasi fikradeeda iska leh inta ugu badan ninkan wasiir ku xigeenka sheegta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf ay yiraahdaan bal qayb kamid ah hadalka xildhibaanka. telefishinka qaranka ina telefishin qaran dhawaa ka xishoona horta bil Ramadaan waa telefishin qaran ma aha X telefishin qaran waa xureen u baahan yahay wuxuu xureen ugu baahan yahay anoo maanta xildhibaana ka aragti duwan nimankan wareysi adin siina hada dhaway kala cararayaan ima siin karaan wariyaashooda pressure saaran يا برشر صار كان ku xigeenkan صار muxuu leeyahay xildhibaano mucaarad ya Cabdiraxmaan oo khibrad iyo waayo aragnimo aan u lahayn meelada saxaafadda isla markaana ka soo galay hal idaacad oo qaab tababar ahaan uu markii hore u joogay kadibna uu qaab garab ahaan ku yimid telefishinka xilligaas uu ahaa telefishin saameyn leh ayaa hadda hoos u dhacay waana ninka curyaamiyay telefishinka sidoo kalena dhibaateeyay saxafiyiin fara badan oo ka mid yahay Cabdalla Axmed Muumin Maxamed Bulbul Ali Aadan iyo wariyaal kale oo dartiis magaalada uga tagay iyaga oo diidayay in nin aan khibrad lahayn maamulo aragtiisa gurican la qaato balse awood dawladeed iyo boor isku qarin uu waday ku tiimbareynayay waxyaabo asiga u gaar ah iyo agajugleen uu kala kulmayeen ninkaasi oo maalin ay rajeynayaan in حتى هدي ويمادو دبدا
in ay maxkamadda tigsadaan. muuqaalkan midka xiga waxaan uga hadli doonaa guryo u gaar ah, dhaqaale u gaar ah oo dowladda ka sameeyay iyo xogo kale oo isla ninkan ku saabsan. muuqaalka sii gudbiya mahadsanidin.